kulan waqti badan qaatay oo looga hadlayay arrimaha nabadgelyada iyo horumarintiisa ayaa lagu soo gabagabeeyay degmada Waaberi ee gobolka Banaadir waxaana kulankani amniga ka qayb galay qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada amniga ee ka howlgala qaybta Weliyo Cadde waxaana kulankani shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir dhinaca amniga iyo siyaasadda mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxaana kulanka inta uu socday uu gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ka dhageystay gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada amniga sida ay u socoto dabdalgelinta howlaha amniga ee gobolka Banaadir iyo qaabka ay ula macaamilaan bulshada ay u adeegayaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir dhinaca siyaasadda iyo amniga mudane Tuulax ayaa kula dardaarmay gudoomiyaasha degmooyinka iyo saraakiisha ciidamada amniga oo kulanka la qaatay inay dardar geliyaan nabadgelyada caasimadda si magaalada Muqdisho ay u noqoto magaalo la mid ah magaalooyinka dhigeeda ah dhanka kale markii kulankan lagu soo gabagabeeyay xarunta degmada Waaberi ayaa gudoomiye Tuulax waxa uu kormeer ku tagay xarumaha degmooyinka Hodan Holwadaag iyo sidoo kale degmada Xamarjab oo ka mid ah qaybta Weliyo Cadde si markaasi uu kulgalo xaaladaha kala duwan ee ka jira degmooyinka uu kulanka gaarka la qaatay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax kulanka marka uu soo gabagaboobay ayaa waxa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Banaadir ahna ku-xigeenka dhinaca siyaasadda iyo amniga gobolka mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax isagoo ka warbixiyay waxyaabihii kulankaasi looga hadlay waxaan saakay bilaabay inaan kormeer ku soo sameeyo guud ahaan degmooyinka gaar ahaan degmooyinka la isku yiraahdo Weliyo Cadde waxaan markii ugu horreysay tagay degmada Waaberi oo aan kula kulmay saraakiisha amniga degmooyinka la isku yiraahdo Weliyo Cadde halkaas oo aan uga dhageystay warbixino ku saabsan amniga iyo sida ay u socdaan howlaha amniga ee degmooyinka ka socda kormeerka waxaa ii weheliyay inaan 4 degmo Weliyo Cadde ka kooban tahay oo hadda ugu dambayso aan Holwadaag joogo aan ka soo bilaabo degmada Xamarjab degmada Hodan kormeerkan wuxuu ku saabsan yahay inaan u kurgalo xaaladda shaqo iyo sida ay u shaqeeyaan degmooyinka iyo inaan sii dardargelino maamulkeena cusub qaabka degmooyinka u shaqeeyaan iyo inaan ku dhiirigelino in shaqooyinkii socdo sidoo loo sii wado iyo xaaladda dadka degan degmadaas iyo cabashooyinka jira inaan ogaano hadda waxaan joognaa degmada Holwadaag oo uu soo dhaweeyay gudoomiye Cabdikariin degmooyinkii kalena waa soo maray waxaana kulley wadi doonaa maalmaha soo socda inaan ogaano xaaladaha shaqo ee degmooyinka iyo in maamulkeena cusub aan bilowno inaan degmooyinkii ku dhiirigelino shaqadii socotay inay socoto wixii aan ku dari karnana annaga maamulkeena cusub inaan sii wadno gudoomiye degmadana hadda maanta ugu dambeysay Weliyo Cadde degmooyinka kale galbeed iyo bari iyo bartamahana asbuucan dhexdiisa tagi doonaa hadduu alla si shaqadii socotay aan u sii dardargelino marka aad ma santa aad baan u sii نور سعيد تاليد تلفزيون قرن كصوماليات مقالة المقدشو